igana alle hada markaan badanka arin si runa uga hadlayo waxa laga yaabaa dareenkaygu inuu isbedelo laakiin daacadnimaan idinku waramaya aniga cidna yaan laygu hadlay xaaladayda in Soomaaliya ay wax ka qabato ayaan doonayaa waxaan isweydiiyay markaan laxaad beelay nolosha halkeed ka soo geli kartaa maadaama aad laxaadkaagu weyday oo aad qof yani dulsaar ku tahay wax kasta oo qabsanayay markii anigu aan laxaad beelay meesha way ka baxeen haddii aan cunto cunayo qof baa afkaygu guri jiray haddii aan suuliga gelayo qof baa geyn jiray haddii aan isrogayo qof baa rogi jiray farmaan dhaqaaji jirin kaneeca xabada hadday qaniinto qof baan ku oran jiray iga duuli kaneecada waliba halkay iga qaniintay iyo xog marka waxaan dib u bilaabay nolol cusub oo ah ta qofka caadigii markuu yar yahay maro oo ilmaha yare soo dhasha inaan iska krogo inaan marba dhinacaan dhabarka ku siqo inaan soo fadhiisto inaan gacmihi wax ku cuno adigu dib baan u dhashay su'aashan isweydiiyay waxa ahayd xagee baan nolosha ka soo geli karaa marka aan dhakhtarka ku jiray wehelka ugu badan ee aan lahaa waxa uu ahaa radio yar oo buugayga ku sawiran dad isweydiisaan kafarka buugayga waxa ku sawiran radio yar aan saa u hayo radiogu wuxuu ahaa saaxiibka kaliya ee aan marna iga tagi jirin ee waqtiga ugu badan ii dhaafin jiray markaan arkay maalin walba wariyaashan imidadaaliya waqtiga ugu badan ii dhaafiya ayaa waxaan isweydiiyay dadkan wariyaasha ah sidooda kale ma noqon kartaa marka buugga si fiican u akhri doontaan idaacadii radio culture la dhaho baan aasaastay codkaygan ku duubi jiray anoo cajaladahayga iyo waxa iska duubta ayaa waxa dhacday telefishinka Universal ayaa warbixin iga sameeyay waa 2015 warbixintii dad badan baa daawaday runtii aad bay waxaygii dadka u soo jiiteen dadkii la soo xiriiray waxa kamid ahaa nin imika Denmark jooga waxbarashada saxaafadda ayaan ka bixinayaa buu igu yiri markaan waxbarashada saxaafadda bilaabay la 3 iskuul ayaan raadiyay laba kamid ah waxa iga hor istaagtay jaranjarta oo wadankeena markaad aragtaan meel kasto kamid ah male raamka ama salaxa loogu talagalay qofka sidayda oo kala ugu dambeyn saxaafadii waan bartay waa dareemi kartaa qof intuu waxbarasho bilaabay aan u arday meel uu shaqo tagaa haddana shaqooyin baan raadiyay adigu idaacadda nimka ka shaqeeyo ayaan shaqo ka raadiyay laakiin kuma guuleysan inaan ka helo 2016 bay ii suurta gashay markii koowaad inaan shaqo galo waxaan ka shaqo bilaabay television star la oran jiray waaga caanka ahaa xageega inta ka gadaale waxbarashadii kamaan harin diblom saxaafadda ayaan ka qaatay jaamacadda Hargeysa oo isaguna waayihiisa lahaa buugad ka akhrin doontaan waxbarashadeeda heerka aan ka joogaa maanta waxa weeye degree public administration oo jaamacadda dawladdu ay maamusho CSI aan ka diyaariyay inta markaan maray aday shaqo noqoto aniga naf ahaan maxamed ahaan u raadsaday haddii ay noqoto waxbarasho aniga ayaa raadsaday marka waxaan sidii adigu ku dhaado maadaama aanay jirin qof ehelkaaga ama dad ehelkaaga oo caafimaadkaaga ka shaqeynaya adiguna caafimaadkaaga miyaad raadsatay markaan saa idin leeyahay noloshayda caafimaadkeedu hal qof ayuu macno u sameynayay waxa uu ahaa adeerkay Cabdiraxmaan Ducaale oo Somaliland iyo Soomaaliyadii horeba gudoomiyaha bangiga ka soo noqday bangiga ganacsiga marka adeer uu dhintay markuu dhintayna noloshii oo dhan inaan dabaro aniga ayay hoos timid waxaan arkayay maxamed oo calankii dusha laga saaray oo xoogaa yar yaxyaxaya ka yaxyaxin muuse biixi intaad caafimaadka ku maqan tahay calanka Hargeysa la geenaya habaha ka yaxyax cid ku taabanaysa ma jirto intaas waa intaas u dhaafi maayo intaas maxamed markuu caafimaadkiisa ka yimaado waxaan ballan qaadaynaa hadduu rabo shaqaan u ballan qaadaya horta waxaan runtii soo dhaweynayaa maxamed soo dhawow annagu waa tashanay halkaa markaan afka isku leexinay oo aad hadashay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa caaway وكفى الله المؤمنين القتال آيات لإرادة جرى وكفى الله المؤمنين القتال إساقا نقضوا القاضي عليسك انتي سيوينيد
waxaana rabaa waxaan arkayay maxamed oo calankii dusha laga saaray oo xoogaa yar yaxyaxaya ka yaxyaxin muuse biixi intaad caafimaadka ku maqan tahay calanka Hargeysa la geenaya habaha ka yaxyax cid ku taabanaysa ma jirto intaas waa intaas u dhaafi maayo intaas oo gobsan baa ila dardaarantay inta u dhaafi maayo waxaan anaga wasaaradda arrimaha gudaha ka mas'uula waxa la yiri jiscinkii baa haray jiscinkii caafimaadkii waa la ballan qaaday laakiin jiscinkii baa haray waxaan runtii buugga 143 page-kaas ka akhriyay maxamed arrin soo martay oo shaqo uu raadiyay oo meelihii barayfadka ka waayay oo gabar khayr qabta ay qaraabo yihiin malaha oo wasiir taqaanay ay waday oo Leyle la yiraahdo oo markii wasiiradii loo geeyay gabadhii waji gabaxay ku ridani kaan oo tiri maamo iska waxbaro maxamed markuu caafimaadkiisa ka yimaado waxaan ballan qaadaynaa hadduu rabo shaqaan u ballan qaadaya horta taas waa garantiid waxa ku soo haray xagga buugga waa qiimo badan yahay waxaan anna qaadanayaa Faarax Abdulqaadir oo wasiirka waxbarashada kama liidan doono xasan cali khayr oo dhowr jeer la sheegana kama liidan doono wait waa isku yarayseen waxaan soo wada moogay emotional damage horta ra'iisul wasaaraha 150 xabaan u qaadaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre waxaan ku kabayaa 120 anigu kuwaas isku meel ma noqon karna ragga hore 120 baan ugu wasaaradda u qaadaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii dadka reer Muqdisho waa dadkaas aragtay maxamedow qamar suudaani dhowr jeer baa la xiraa la yiri halkaan intuu heesii wax jeediyay waad ku mahadsantahay adigoo lagu xiro xabsiga liintii ku soo dhadhamiyay inaad noo soo laabatay imtixaanaadkay ka mid tahay waxaas waa laga gudbaya imtixaanka maxamed uu ka gudbayo kala waay guud ahaan waxaan rabnaa maxamed soo dhawow buugga intii aad daabacdid magaalada Muqdisho waxaan u samaynaynaa marketing xoogan intani waa bilow labadaas 150 kaas ra'iisul wasaaraha 270 kaani ra'iisul wasaaruhu aan ku faataxaysanay waxaan rajaynaynaa in badan oo kamid ah aan soo wici doono gobsan xildhibaanadeena sharafta leh gabadha reer Galmudug inaan soo wici doono oo in badan oo kamid ah buugaagta wixii daabacan la qaadi doona aad iyo aad baan u mahadsantiin maxamedna waxaan rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan Hargeysa buugaaga looga soo gatay Garowe buugaaga loo soo gatay Muqdisho soo caasimadda Soomaaliya maahan magaciina anagoo ku hadlaayo caafimaadkiisa anaga ka faala qaadnay amin maaragtay hal doorka maaragtay oo la baxay oo naynaystiisaasi nin u qalmo inuu yahay ay muuqato waxaan leeyahay guulayso caafimaad taman Allah ku siiyo ilaahay wuxuu la jiraa markasta qofka adoonkiisa u kaalmeeyo marka walaalihiina aan iskaashano wiilkeynana xanuunka uu sheeganayo marka hore golaha wasiirada halkan fadhiyo xildhibaanada labada gole aqoon-yahanka dhalinyarada baada saxaafadda iyo wada hal door salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hariwaa aniga hadhiwaa ma karno hanala yaabin haddaan hariwaa dhahno hariwaa iyo haldooree saleelayo haldooraa qaada bahash koobka haldooraa qaaday waan ku faraxsannahay caawa in caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho uu soo gaaray
wiilkayna haldoor asigoo weliba hadiyad u sido shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool waa ninkii ugu horeeyay aan dhihi karnaa inta qoraal buugaag soo qoray buuggiisa asigoo wada la yimid rabana inuu caafimaadkiisa ku dabaro waxaan leenahay guulayso haldoor ayaan leenahay waxaan aad iyo aad u mahad celinaynaa dhalinyaradii soo abaabushay kulankan quruxda badan oo kala duwan ee marti sharaftan halkan isugu keentay iyo xildhibaanadayna xildhibaan Gobson oo runtii dhexda u xiratay inay haldoor magaalada Muqdisho ku soo dhaweyso hadafkii ujeedada uu yimid inuu gaaro annaga caawa runtii dhalinyaradan intaan ah oo halkan isla joogto fursad ayay u tahay cid kastoo mas'uul oo halkan soo istaagto inay gaarsiiso fariintooda waxay ka dhawaajisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallahu fi cawni alcabdi maa kaana alcabdu fi cawni akhiihi ilaahay wuxuu la jiraa mar kasta qofka addoonkiisa u kaalmeeyo marka walaalihiinna aan iskaashanno wiilkaynana xanuunka uu sheeganayo oo halkan u yimiday Hargeysa buugaaga looga soo gatay Garowe buugaaga loo soo gatay Muqdisho soo caasimadda Soomaaliya ma magaciina anagoo ku hadlayo caafimaadkiisa anaga ka faala qaadnay waxay shayda qabatay xildhibaanadii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisii aqal iyo golihii wasiirada marka iyo dhalinyaradan quruxda badan halkan fadhido inaan dhowr boqoloo buugaan gataan iraahdo waa igu filaaweysay inaan caafimaadka wiilkayna aan kafaalad qaadno magaciina aan ku kafaala qaado ayaan ka door bidnay caasimadda Soomaaliya sida laga dhawaajiyay cid kastoo Soomaali ah oo magaca Soomaaliya sheegato meel kasta ay ku nooshahaba caasimadoodu waa halkan maadaama ilaahay aniga mas'uul nooga dhigay inaan dusha u dhigano oo aan damaanad qaadno wiilkayna diyaaradda uu soo raacay caasimadiisa inuu yimaado oo yiraahdo halkaani waxaan u imiday caafimaadkayga saan uga libkeeni lahaa dhibaatadii uu soo marana uu nooga sheekeeyay asigoo kanaacada markay cunto aan dushiisa ka qaba karin asigoon mususha inta galo aan soo xaajo guda karin inuu inta soo maray maantana alxamdulillah gacmihiisa uu ku adeeganayo inta dhiman insha Allah qaybtaynaan ka qaadaynaa waa kana qayb qaadanaynaa ilaahay baan uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg siiyo waa nin hamile waa nin maskaxdiisu ay sareyso waa nin maaragtay haldoorka maaragtay uu la baxay oo naynaystiisaasi nin u qalmo inuu yahay ay muuqato waxaan leeyahay guulayso caafimaad taman Allah ku siiyo aniga mar hadalka inaan ku dheereeyo laakiin magaciina iyo matalaadiina iyo maqaamkiina anagoo qaadanay ayaan wiilkiina ayaan kor u qaadnay oo holka ku yaraada caawa